Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa in salaamo dhammaan walaalaha Soomaaliyeed. Waa mar kale walaashina Xabsa Shire kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago faa'iidada uu leeyahay flaxseed. Flaxseed waxaa loo yaqaano qoondar Soomaaliga lagu dhahaa. Inta badan ayaantan dambe wuxuu kusoo batay dadkeena inay fahmaan dalagyada kala duwan, waxyaabaha dhirta ama daawo dhireedyada ama waxyaabaha baxo oo anaga hore aan aqoon jirin iyagoo wadankeena yaalo haddana aan aqoon u lahayn badankeena oo hadda aan ka baranay markii uu isticmaalka internetka nagu batay. Marka badanaa hadda qoondarka waxaa aragnaa hablaheena oo aad u isticmaalo ama gabdhaha oo aad u isticmaalo ayagoo u isticmaalo inay ku qurxiyaan timahooda. Laakiin ma ogtahay flaxseedka in tinta kaliya aan loo isticmaalin oo la cuno oo ka mid yahay dalagyada la beero oo la cuno sida galleyda iyo digirta oona ah mid aad caafimaadka ugu fiican. Flaxseedka ama qoondarka Soomaali sida u taqaano badanaa qoondarna waxaa lagu yaqaanaa Soomaali dhinaca waqooyiga anaka reer xamarkeena badanaa magac u yaqaanaan oo gooniya ma lahan. Marka flaxseedka waxaa waaye wuxuu ku imaadaa laba nooc oo kusoo baxaa oo dhir ahaan laba kalar uu leeyahay markuu soo baxo miraha. Mid waxaa waaye bunni waaye ama qaxwi ama kafeey sida u taqaanid. Midna waxaa waaye jaale ama dahabi. Labada noocba waxay leeyihiin faa'iidooyin aad u badan oo u fiican jirka ibni'aadanka. Cilmi baarisyo badan oo la sameeyay waxaa la ogaaday qoondarka waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo faa'iidooyinka uu u leeyahay jirka ibni'aadanka. Halkaan marka waxaan idinkugu soo koobi doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay iyo qaabka aad u isticmaali kartid. Marka laga soo tago timaha inuu qurxiyo, okay? Topic oo tinta mar kale taa idinkaga soo diyaari doonaa qaabka tinta ugu isticmaalaysid iyo siyaabaha oo kala duwan oo u sameyn kartid markaad tinta ku sameysanaysid. Laakiin maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo only caafimaadka sida ugu fiican yahay iyo qaabka u isticmaali kartid. Marka flaxseedka halka qaando waxaa la dhahaa waxaa ku jirto halka qaando flaxseed kaliya waxaa ku jirtaa lahay borotiinka jirka u baahan yahay. Yacni maanta kaliya halii qaybta aa cunto hal qaando ka mid ah hadaa cuntid waxaa ka helaysaa borotiin, waxaa ka helaysaa fiber. Fiberka waxaa waaye qolofta ay caloosha u baahan tahay oo caawiyo dheefshiidka ama digestive systemka. Waxaa kaloo ku jiro dufanta fiican oo jirka u baahan yahay oo u fiican wadne xanuunka oo loo yaqaano omega 3 fatty acids. Waxaa kaloo ku jiro fitamiino badan iyo minerals badan. Marka waxaa la dhahaa halka qaando oo qoondar shiidan. Qoondarkana waxaa loo isticmaalaa isagoo shiidan ayaa fiican markuu miraha kaligiis uu yahay si dhaqsana calooshaada dheefshiidkeeda ma xamili karto. Ceerinkiisana lama cuni karo. Ceerinkiisa haddii la cuno waxaa la dhahay wuxuu keeni karaa dhibaatooyin ama caafimaad daro because waxaa ku jiro waxyaabo sun ama toxins ku jira la dhahay. Marka rabtid inaad isticmaashid waxaa la sameeyaa waa la dubaa bahalka waxaa ku dubaysaa bir qalalan ama kaleeto waxaa gelinaysaa foornada markuu soo dubmo ayaa waxaa sameynaysaa waa shiidaysaa budadaas marka waxaa ku darsan kartaa cuntooyin kala duwan mishaarida ama boorashka ama cunto aa cunaysid smoothie-ga markaad sameysanaysid ama yogurt-ka ku dhex walaaqan kartaa saas ayaa ku qaadan kartaa. Waxaa kale marka waxaa la halka qaando waxay u dhigantaa horta 7 garaam oo flaxseed ama qoondar shiidan waxaa ka helaysaa 37 calorie. Carbs 2 garaam dufanta ku jirta aa ka helaysaa 3 garaam. Fiberka waxaa waaye 2 garaam. Borotiin 1.3 garaam. Copper 9 garaam. Manganese oo waxaa 8 garaam. Magnesium 7 boqolkiiba ayaa ka helaysaa. Phosphorus oo 4%. Zinc 3%. Vitamin B6 2%. Iron oo 2% iyo folate oo 2%. Intaasoo faa'iido ayaa ka helaysaa just isticmaalka hal qaando oo qoondar marka waxaa la dhahay vitamin B oo zaid ayuu leeyahay bahalka qoondarka waxaana fiican source fiican copperna waa laga helaa macnaha omega 3 gana waxaa la dhahay wuxuu u fiican yahay excellent source of alpha
alphanonic acid ama ALA wax loo yaqaano. Noocan oo fatty acidkan waxaa la dhahaa wuxuu u fiican yahay wadnaha. Waxaa kaloo laga helaa dhir badan laakiin kan ugu fiican oo laga helo waa flaxseedka. Marka waxaa la dhahaa flaxseedka ama qoondarka wuxuu kaa caawin karaa inuu ka hortago maxaa la dhahaye kansarka, siiba kansarka galo naasaha. Wuxuuna u fiican yahay gabdhaha ama hooyooyinka ama hablaha oo badanaa family history u leh inuu kansar ku dhaco. Waxaa fiican inay aad u isticmaalaan maadaama uu ka hortago kansarka naasaha. Waxaa kaloo ka buuxo fiber ka buuxo yacni maadaama aan dhahna halka qaandabo oo bahalka flaxseedka oo shiidan waxaa ku jiro 2 gram oo fiber midkaasoo 5% ama 8 oo maalintii inta lagaa rabo inaad qaadatid. Marka fiber ka buuxo wax fiber-ka lehna badanaa waxaa la dhahaa wuxuu u fiican yahay digestion-ka oo kaasoo kaa caawinayo inuu ka hortago yacni calool fadhi aa yeelatid ama calool istaag ama inay saxarada kugu adkaato. Marka haddii aad tahay dadka saxarada ku adag inaad isticmaashid ayaa fiican si oo caloosha kuugu jilacdo. Waxaa kaloo la dhahaa wuxuu reduce gareeyaa ama yareeyaa cholesterol level-ka ama dufanta xun oo jirka gasho oo dadka cholesterol-ka qabo way u fiican tahay. Waxaa la study la sameeyay oo dadka cholesterol qabo oo la sameeyay inay cunaan maalintii 4 qaando ama 30 gram oo flaxseed la shiiday inay isticmaalaan 15% cholesterol-kooda dadkaas waa u yaraadaa la dhahay. Maxaa kaloo jiro dadka high blood pressure qabo ayagana in lagu tijaabiyo 4 qaando ayagana maalintii ay isticmaaleen kaasoo ayagana blood pressure-kooda hoos u dhigay. Waxaa kaloo oo yacni uu yareeyaa la dhahay sokorta jirka ku jirto ama dhiigga sokorta ku jirto oo dadka diabetes-ka qabo ayuu aad ugu fiican yahay. Khaasatan wuxuu u fiican yahay dadka diabetes-ka type 2 la dhahayo diabetes-ka labaad yacni diabetes-ka type 1 iyo type 2 kala leeyahay. Type 2 dadka qabo ayuu aad ugu fiican yahay oo wuxuu yareeyaa sokorta dhiig ku jirto wuxuuna ka hortagaa insulin resistant ama qofka insulinka inuu yacni uu jirkiisa u qaadan waayo camal uu ka hortagaya. Marka blood sugar level-ka ayuu regulate gareeyaa mafahanteen. Marka waxaa kaloo oo u fiican yahay weight-kaaga inuu reduce gareeyo. Dadka rabaan inay weight-ka iska dhimaan flaxseed hadday qaataan waxaa la dhahaa wuxuu kaa dhigayaa yacni qof dhergan camal mafahantay yacni caloosha dhaqso ma ka baxo. Marka haddii aad diet-kaaga ku dartid subax hore especially markaa quraacda aa sameysanaysid mishaari ama oats-ka ama waxaa isku dardarsanayso haddii aad ku darsatid ilaa yacni waxaa laga yaabaa dhaqso inay gaajo ku qabanin. Kaasna waxay kaa caawin kartaa inaa weight-kaaga iska dhintid. Waxaa kaloo yacni flaxseed-ka yacni siyaabaha u isticmaali kartid maxaa ka mid inaa asoo budo sidaa idiin sheegay qaabka u sameynaysid waxaa waaye inaa soo dubtid kabacdi aa shiidid budo asoo weel aa ku shubanaysaa waa xiraysaa ama asoo budo ahaa la gadaa meelaha qaar. Laakiin adikan guriga aad ku samaysatid mar walba ka fiican midka aa kasoo gadid dukaamada. Waxaa kaloo fiican marka saliidiisana waa la isticmaali karaa oo flaxseed-ka wuxuu leeyahay saliid 43% flaxseed-ka waxaa la dhahaa wuxuu ka samaysan yahay saliid waaye yacni saliid oo flaxseed jirto. Saliidaasna waa la cuni karaa ayagana laakiin waxaa la dhahay kuleelka uma adkeysan karto saliidaas oo ma loogu talagelin in wax lagu dubo camal saladkaa ku samaysan kartaa ama cunto oo saliidka inaad tas ku siisid markaas isla markii dabka aad ka dejinaysidna waa ku karsan kartaa. Marka haddii lacala flaxseed oil aad rabtid inaad isticmaashidna waxaa la dhahay weel mugdi inaad ku shubtid oo meel mugdi aad gelisid si yacni nutrients-ka ama faa'iidada ku jirto aysan kaaga dhimanin. Laakiin kuleelka iyo qoraxda uma adkeysan karto flaxseed oil-ka ama saliidda qoondarka. Marka powder-kiisa cuntooyinka ku kala darsan kartaa mishaarida ku darsan kartaa. Marka waxaa waaye flaxseed-ka faa'iidooyin badan oo leeyahay ha laga faa'iideysto insha Allah. Haddii hore aa u maqashay ama hore aa u cuntay comment-ka noola wadaag. Aniga badanaa waxaan arkay naftirkeyga dadka ayagoo ku darsanayaan laakiin weligay ma dhadhaminin. Laakiin timaha la marinaa waa isticmaalo timahana aad ugu qurxiyaa. Marka insha Allah qaabab kala duwan oo tinta loogu isticmaali karana waa idin la wadaagi doonaa. Videoga like saara comment ka bixiya asxaabtiina la share gareeya. Waxaa kaloo sameysiin maxaa la haddii uu jiro waxyaabo aad jeceshiin inaa research idinkaaga soo sameeyo ii soo dira ama ii sheega wax aad rabtid inaan ka hadlo
oo yacni aadan fahamsaneyn faa'iidooyinka oo jirka ama uu caafimaadka u leeyahay waa idiin soo diyaarin doonaa insha allah. Waa mahadsantihiin, jazaakum allahu khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.